الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق الله العظيم. waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa. darsigeenu wuxuu ka bilaabanaa aayadda 9aad ee min suurati albaqara. qaala tacaala: bi'sa maa shay ayaa baas iyo balaayo lahaaday ishtarow ay soo gateen yuhuudda bihi maaga anfusahum xada anfusihim nafyaalkoodii dheeftiisana ay kusoo iibsadeen an yakfuruu kufruhum gaaloobideedii ayaa baas laato an yakfuruu kufruhum yani gaaloobideedii almaqsuusu bidambi yani dhaleecaynta lagu gaariyeen waa kufruhum gaalnimadoodii bimaa shaygiina ay ku gaaloobeen ama diinkiina ay ku kufriyeen anzala allahu allah uu soo dejiyey bagiyan liajli xasadin yani xasidnimo daraaddeedna ay ugu kufriyeen an yunazila allahu calaa an yunazila allahu ilaahay inuu kusoo dejiyey daraaddeed ilahay inay kusoo dejiyeyna ay xasdaayaan min fadlihi fadligiisa uu kusoo dejiyey calaa man qof uu kusoo dejiye waa nebigii calayh salatu salaam yashaa uu doono min cibaadihi addoommadiisa xaal uu ka mid yahay mankaasi fabaa-uu waxay la noqdeen yuhuuddii bighadabin caradaasoo calaa ghadabin caro kale dusheedii ahaatay walilkaafiriina gaalada waxaa u sugnaado yidhi ilaahay cadaabun cadaabkaasoo muhiinun sharafta ka qaado. aayaddan 9aad ee suurat lbaqara ilahay wuxuu nooga hormaa yuhuudda shartoodii iyo baadilka, yani waxay sameeyeen xaqiya iska suuqa geeyeen, baadil ay kusoo bedesheen. nebi maxamed nebinimadiisana way qariyeen, tilmaamihiisii way bedeleen. marka waxayna u sameynaya xaasidnimo. nebi maxamed oo carab naqday diiday. nebiga waxay rabeen nin yuhuud aduu naqan lahaa macquul, lakin waxay yidhahdeen nin carab duu naqday annaga buusan naga soo bixin, waxa waaye ma taageerina yidhahdeen. marka qabyaaladaa gashay iyo tacasub yani xaqa ka reeba. marka saa darteed qabyaaladii tacasubka wax wanaagsan ma ah, waa wax xun. ilahi wuxuu yidhi bisa maa shaya baas laaday ishtarow yani yuhuudda ay iibsadeen bihi maaga anfusahum xada anfusihim nafyaalkoodii dheeftii ay heli lahayen iyo jannadii yani waxay ku iibsadeen. taasaa baas naftooda nafsiibkii ay heli lahayd oo janno ah way iska nafsiibkaasay suuqa geeyeen way iska gadeen. marka waxaas ay iska gadeena baas laada. marka waxaas ay yani soo gateen baas laaday. fahmaysaa? an yakfuruu kufruhum ay almaqsuusu bidambi wax yani dhaleecaynta dusha lagu gaariyeela waa kufrum gaalnimadoodii bimaa diinkiina ay ku kufriyeen anzala allahu ilaahi uu soo dejiyey calaa muxamedin nebi maxamed uu ku soo dejiyey bagyan liajli bagyin xaasidnimo daraaddeed ayay diinkii nebiga lagu soo dejiyey u diideen ugu kufriyeen. iimaankii ay isteenna yani ay iska iibiyeen. an yunazila allahu calaa an yunazila allahu ilaahay inuu kusoo dejiyey yani xasidnimo ay xasdaayaan min fadlihi fadligiisuu kusoo dejiyey calaa man axad qofkaasoo yashaa uu doono oo nebigu calayhi salaatu wasalaam min cibaadihi addoommadiisa xaaluu ka mid ah mankaas oo nebiga ah calayhi salatu wasalaam lagu soo dejiye waxyiga tii xasdaayaan oo nin yahuudiga rabay nebiga laga dhigi rabay. fabaa-uu yuhuudi waxay la noqdeen bighadabin caray la noqdeen oo caradaas maxay tahay yani calaa ghadabin care la dul saaray. caradii hore waxay ahayd yani waa tii dibiga ay caabudeen, waa dibiga caabuditaankay caabudeen, care ilaah ku dhacday. carada labaad maxaa nebi maxamed markay beeniyeenna waxay ku dhacday yani caradii kalaa ku dhacday. sidaas yaa lagu fasiray. waxaa kaloo lagu fasiray carada koowaad waxay ahayd in nebi ciise gaaloobid ay ku gaaloobeen kitaabkii lagu soo dejiyey injiil ay beeniyeen. yani carada koowaad waa yani gaalnimada ay ku gaaloobeen nebi ciise. carada labaad waxa waye nebi maxamed gaaloobid ay ku gaaloobeen diintii qur-aanka ay beeniyeen. labadaas waa la sheegaa wallahu aclam, ilaah og. walilkaafiriina gaalada waxaa u sugnaaday uu ilaah yidhi cadaabun cadaab cadaabkaasoo muhiimun sharafta ka qaado. waidaa qiila lahum
markii lagu yiraahdo yuhuudda markii lagu yiraahdo iyo dadka lamidka oo munaafiqiinta iyo kirishtankaba aaminuu rumeeya bimaa diinkii rumeeya anzala allahu ilaahay uu soo dejiyey markii lagu yiraahdo war rumeeya diinkii ilaahay soo dejiyey calaa muxamedin nabi maxamed korkiisa lagu soo dejiyey rumeeya marka la yidhaahdo qaaluu waxay leeyihiin nu'minu waxaan rumaynaynaa annaga bimaa diinkii aan rumaynaynaa unzila la deji calaynaa dusheeni annaga waxaan rumaynaynaa bimaa diinkii towraad ahaa unzila calaynaa annagana lagu soo dejiyey oo nabigeena muuse lagu soo dejiyey annaga diinkaasaan rumaynaynaa ay leeyihiin diintaa nabi maxamed annaga hool noo taalam aanay leeyihin ilahi wuxuu yiri yakfuruuna waxay ku kufrinayaan oo ku gaaloobayaan bimaa diinkii waraa'ahu yani diinkoodii ka dambeeyey wayakfuruuna waxay ku gaaloobayaan bimaa diinkii waraa'a tawraat kitaabkii tawraat gadaashiisa diinkii soo dego oo ah kii nabi ciise lagu soo dejiyey iyo kii nabi maxamed way ku kufrinayaan walxaal huwa diinkan dambana oo nabiga lagu soo dejiyey alxaqu xaq uu yahay musadiqan xaal uu yahay kii u rumaynaya limaa diinkii macahum iyaga la jirkoodii ah oo towraad ah kitaabka towraad muxuu leeyahy sax waa kitaab jiro ahaa nabi lagu soo dejiyey lakin hadda waa la nasaqay sidaasuu cadayna u rumaynaa marka qolle nabiga suubano su-aal weydii yuhuudan calayhi salaatu wasalaam waxaa tirahdaa falima shay dartiis muxuu yahay taqtuluuna aad u dili jirteen ambiya allahi ilay ambiyadiisa min qablu hadda ka hor oo haddiiba aad yani diinkii nabi muuse aad rumaysneedeen iyo diinkii laydinku soo dejiyey kitaabkii towraad aad rumaysneedeen falima marka shay dartiis muxuu yahay taqtuluuna ambiya allah ilay ambiyadiisi sababka aad u dili jirteen muxuu aha marka iiga sheega min qabli majii'i lqur'aan qur-aanka intuusan imaanin ka hor yani nebiyaalka waad dili jirteen waa ladin yaqaana in kuntum haddaad ahaateen muminiina kuwii kitaabkii towraad rumaysan haddaad tihiin bal maxaa u dili jirteen ilan kitaabka towraad waxaa ku qoran nebi iska dhaafay shaksi in la dila xitaa kuma qoran dilka xaaraam waa ku qoran idinkana waa dili jirteen marka waxay u muuqataa inaad beenlooshin tihiin kitaabkaasna ma idnaan rumaysnayn kanna ma rumaysnidiin ilahi wuxuu yidhi walaqad wallaahi qad xaqiiqa jaa'akum waxaa idin yimid yuhuudey waxaa idin yimid muusa nebi muuse idin yimid bilbayinaati xujooyinkii cadcadaa ayuu idinla yimid xujooyinki cadcad waa gacantii ifaysay ushii maska noqonaysay iyo xujooyinkii sagaalka ah tirada badnaa waa la sii xujooyin cadcad ayuu idinla yimid uma markuu xujooyinkii kitaabkii towraadna waa kamid yahay uma markuu xujooyinkii cadcada idinla yimid kadib itaqadtum waxaad ka samaysteen oo aad ka dhigateen alcijla weylkii ama dibigii yaraa ilaahan macbuudan kula caabudaad ka dhigateen towraad intaad ka leexateen weylkii ama dibigii yaraa macbuud ilaah ka dhigateen min bacdi dhahaabi muusa nabi muuse markuu baxay uu dhankaas iyo buurta siinaa uu aaday oo kitaabkii towraad uu doonay kadib adika hadda weylkii caabudeen walxaal ayaad caabudeen weylka antum adikoo dhaalimuuna kuwii dulmi sameynaya og yani waxaan weylkan inuusan cibaado lahayn adikoo og yaad ku cibaadaysateen oo ilaah ka dhigateen waid akadnaa wadkuruu xusuusta reer bani israa'iil id waqti xusuusta akadnaa aan qaadnay miithaaqakum ballankiina lagu kalsoonaa aan idinka qaadnay walxaalna aan ballankaas qaadnay qad rafacnaa aan kor yeelnay fawqakum adinka korkiini aan ka kor yeelnay duura buurtii oo quduu waqulnaa lakum aan idinku nir usoo qadaro quduu qaata maa diinka aataynaakum aan idin siina biquwatin bijiddin wa taacatin dhabnimo iyo daacadnimo ku qaata isyelyeel iska dhaafa wasmacuu maqla maa tu'maruuna wax laydin faraayo maqla qaaluu yuhuud waxay yidhahdeen samicnaa waa maqalnay wax nala faraayo wacasayna waase ku caasinay oo waan diidnay yidhaahdeen inkaaraa ku dhacda yuhuud ilahi wuxuu yidhi ushribuu waxaa la cabsiyey yuhuudda fii quluubihim qalbiyaalkoodii yacni alcijla xuba cibaadati alcijli weylka cibaadadiisii jacaylkiisii ama cibaadadaas jacaylkeediyaa la cabsiiyey bikufrin bisababi kufrin gaalnimadooda sababkiisaan loo cabsiiyey qulle nabiga suubane sala allahu caleyh wasalam yuhuud waxaad ku tirahdaa bisa maa shay ayaa balaayo lahaaday ya'murukum uu idin amraya bihi maaga iimaanukum iimaankiin waxaan iimaankiinu idin amraya oo balaayo lahaada in kuntum haddaad aatay muminiina kuwii asalbo kitaabkii towraad iyo muuse rumaysan haddaad tihiin walla iimaan oo been abuur oo baasli aad wadataan ilahi wuxuu noga oramaa aayaddan ballanka uu ka qaaday reer bani israa'iil waa dhib badnaayeen nebi muuse markii kitaabka la siiyey yani natusay yidhaahdeen ilaahay waa tii ay wada biriqday ku dhacday lagu qeyliyey markay soo noolaadeen haddana waxay bilaabeen barnaamijkaanay bilaabeen oo kitaabkii towraad qaata way diideen markaasa ilaahay buurtii oo fujiyey buurtii dushooda la istaajiy wallaahi bilaahi haddaydnaan qaadanin kitaabkan buurtan weyninka badana dusha laydinka saar inta laydinku sii deeyo hal idinka fakanaya majid marka kitaabkii towraadba xoog iyo seef iyo xoogaa lagu yani ay ku qaateen lagu qaadsiiyey
إلهي وحير اذكرنا وإذا أخذنا واذكروا حصوصته والشيك رير بني إسرائيل إذ وقت أخذنا أن قادنا ميثاقكم بلنك لو كرسونا أن قادنا والكتاب كان قادتا كل رقم نيري ويديدين مرك والحالة إنك قادنا بلنك رفعنا قد رفعنا أن كوريالني فوقكم كركنا دورة بورتي أنك كوريالنا بورا القاضين تلفوجي كركو ذا الاستاجي والله يدينا الدين كان قادنين بورتا الذي كدينا مركز هلا ينلقوا سيدين وقادنين ويبقى مرك مركز لا يعير مركا وقلنا حنكون نير مركا خذوا قاتما الدينك وكتابك التوراة آتيناكم عن الإنسان كتابك التوراة قات بقوة أي بجد وطاعة واجتهاد دلال يبنمو يدعى دمك قات استوتس إيو يعني بقذين إيو يعني وان لو قصبي إيو إسرائيل كاس كدافو نبينا تشرف الاتين فرعون الذين كبد بادي ودين قميس الجري ما الكتاب كان دبنمو يدعى دمك قاتو رقمة كعمل فلا واسمعوا مقل ما تؤمرون وحال الذين فرع وكتابك كجروا أحكام ونواهد وأمرك ونايق وحسن قات قالوا عيلا سمعنا ورك وأم قلني كتابك وان قاضن لكن عصينا وان ديدنا وان عاصينا أحكام سنا دقنا وان عمل فلنا وعمل في الكيس وان عاصينا إلهي مركعواي وغير المغضوب عليهم وسلاسة الله لعنة مرك والمغضوب عليهم هو لو عرض يهود كارها كل وأشربوا حال عبسية في قلوبهم قلب جود حال عبسية ولا جبوا حيه العجل يحب عبادة العجل ويلك أمد بيجي يرى عبادتي عبودتان كيسي عبودتان كيس جعل كيس على قدر جيو قلب جود وحكب وحبه جعل كيس نوعية يعني دبي عبودان قلب جود تاسع كجرت بس دبي كيس عبودان جعلنا قلب جود كجرت مع قلب جود إيمانه بكجر محكن لو جبد له بكفرهم بسبب كفرهم قال لماذا سبب كيد قال لماذا سبب كيد يعني اللوعة قلب جود جعل كيس دبي لو قليه يعني التوراة وموسى نبي موسى يكتب التوراة بيكون كفريين قل للصوبان صلوات الله وسلام عليكم وانا ذيكم بيننا هنا وعاد كتير هذا بئس ما شيء بلايا هذا يأمركم وإذن فرع به ماذا إيمانكم إيمانكم وإذن فرع باس هذا إن كنتم هذا مؤمنين كوي أصل بكتاب التوراة رمز من هذيك وحنا شيء إذا وحكي جري معنا وحكي جري لا إيمان الذين نبي قارمين لهذين مرك إيمان قاس أو نبي محمد إن رحنا إذن ديدا إيمان ما باس واي باس إبلايو حاس إيمان ما باس إبلايو باس كاس إذن أمر رايو يعني إنه يعني نبي الديدان كذا سألوا عن أنت والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.